السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال ولا saaxiibayaal waxaa jirta sheeko sugaaneed aan waa hore qoray taasoo ahayd in hoobalka iyo hal-abuurada Soomaaliyeedba aanay ka xishoon ama taxaw ama sharka hooyadii oo sugaan badan oo islaantaasi lagu aflagaadiyay ku jirto keedka sugaanteena. Waxaa jira geeraar oo maaragtay leeyahay abaan Cabdi Maxamed Amiin kaasoo ku jiray riwaayadii Shabeellagood markii maaragtay isaga Hiib Maxamed ay aad ugu doodaan haweenka iyo ragga iyo maaragtay doodista maaragtay ragga iyo haweenka ay ku doodaan yaa wuxuu ku darayaa hawaba waa tii jannada aadan ka xortay isagoo ceeb aaga dhigaya ama dhaliil aaga dhigaya saa dumar u tihiin maaragtay weligiin aadin kama dhamaato oo waa tii xaawo jannada aadan ka xortay. saasoo kale waxaa jirta hees uu qaado maxamed mooga liibaan oo uu leeyahay salfadeedka xaawo jannadii ka saaray asna maaragtay wuxuu eed aaga dhigayaa awad xaawo fudeed maaragtay dartiis inay jannada uga soo baxday. labadaas maaso waxay ka siman yihiin in dhaliishii jannada looga soo baxay oo dhan dusha laga saaray awad xaawo oo maaragtay lagu inkiray shaydaan inuu maaragtay labadoodaba ka soo wada saaray. sidoo kale waxaa jirta hees ay wada qaadaan Farxii Cali iyo Maxamed Nuur Gariig isla maaragtay uu ku leeyahay ninka dila abeesee ubadkeeda deystay daajeer rabaysta dib u qoomameeyay xaawo iyo dirkeeda isba darajo dhaamaan. wuxuu isagana maaragtay dhaliil uga dhigaya haweenka oo dhan inay yihiin maaragtay kuwa maaragtay ragga dhibaato ku ah oo waa la ii soo dhigay oo dibindaawiyadooda loox la igu dugay leeyahay waa la ii soo dhigay ninka dila abeesee ubadkeeda deystaa macnaha waxaad ka dhigan tahay ubad abeesaad ka dhigan tahay abeesada wuxuu ka dhigayaa xaawo